wadani wuxuu sheegay inuu mudaharaadkii London ka dhacay saldhigga military lagu diidanaa ee lagu xiriirinayay Soomaaliya safaaradeeda halka ku taala in ka dambeysay inuu la qabo fikirkaasi ama mudaharaadkaasi inuu taageersay halkan wuxuu kaga dhawaaqay inuu dhawaan uu qaban qaadanayo mudaharaadka wax ka dhici doona sidoo aragtaan ka xukuumadda arrintaas aragti ma leh arrintaasi wixii aan sheegayno bacdaystay inuu la qabo nimanka iyaga hawsha ay wadaan وكيل كي هاي محمد عبد الله فرماجو أيو عطيستي وتاسو جوابته marka xukuumadda idinku sidoo aragtaan mudaharaadka ka dhacay muxuu ku duwan gashay mudaharaad dad Soomaaliland dhigayeen sidoo inay Soomaaliya ka dambeysay ma Soomaaliya ka dambeysay Soomaaliya way ka dambeysay way cadahay waxa amarka bixiyay ama ku dhawaaqay waxa weeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo uu diidanaa mu ogolayn lobbying buu ka galay dawladdu u tagay يا هوشاس iyada in la joojo ninkii caynka ahaa ninka reer Soomaaliland ama xisbi hogaaminaya ama shacab weynahaba oran maaye muxuu ahaa siyaasi arinta taabta waa nin la qaban nimanka iyaga waa nin isku kooxiyiin waa nin isku hadaf yihiin waxaan aqoonsanahay dakaasi waa inaga soo horjeeda waa isnaqaana wana ishayna laakiin keena halkan waxaan aqoonsanahay inuu qaran dumis yahay ومحو هاي كسو هرجيدو ummadani go'aankii ay qaadatay 1991 wixii ummadan goostay inuu kasoo horjeedo aniga aan arkaya kaas wuxuu cid la cid noqdo haduu noqdo muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani iyo haduu cid kale noqdaba way sababtaadi weydiiseen baa wadani gudoomiyaha la qabo haduu la qabo de waa kaas u noqonaya xisbiga wadani haduu mudaharaadkiisa ku adkaystay inuu bartan ku qabto mudaharaadka uu ku baaqay ka xukuumadda maxalli ka meediyay mudaharaadaan ummadda ogolay la qaban maayo mudaharaadaan ruqsad haysan oo la ogolaan maayo mudaharaad lagu duminayo qarankan la ogolaan maayo